Aabba Soomaaliyeed oo in muddo ah ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay ka caawiyaan kuwooda waxaysta sidii uu ku heli lahaa caafimaad. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa ka diyaariyay wariyahayaga Cabduqaadir Cumar Cabdulle Fiidka. إلا لباتن إيو دور أو إسبيتال وامري وحبنا كوما كمان كنا إيران والبحو إلهي ودن كتختار والبحو إلهي على ساعتين ودن كتها سدقس وبحو إلهي وحل قبل دعاء ساعد أفريقيا بري يا سكا جوشتي شنتي قلبنا ما يقدر صدن دقيقة وحن سو قاري هو مقالة مقدشة كدقين هاي عباس قال يا فرتنجرة ومدة أفريقيا 10 سنة حنون سنة أنا عالم محمد أحمد أيالي هذا أفرتن إسقال جر أيان هاي حنون كان أيا 14 سنة ayaan maartay bilowgiis hore asahay hadda laakiin 2 sano dabas uu soo weynaaday magaalada Muqdisho uu soo gaaray 2 bilood ka hor dhaqaatiirtu waxay u sheegeen in uu qabo cudurka kansarka sanadkan ayaan baaritaan soo aaday baaritaankana waxa lagu yiri cudurka inuu aan meeshan wax loo qaban karin oo asdib leeyahay oo dibida ka soo kan wax loo qaban karo dalka waxba aan loo qaban karna li sheegay علي محمد أحمد حنون كان وحوه هيا سيدو شيء كدواد مدة 14 سنة لكن لودي سنة وجودن بيسي أيو حنون كان سيدران وساقبتي مقالة مقدشة وجوج لبا بلاد سنة مركزين وتجي جواب عافيماد وكلا دوان أو أي كمديهين إسبيتال أي كشقيان إن خطيرة جانبية وحي وشيئان إن جودها دلك حالة دي عافيماد أنا وحبا لو قابن كرين سنة مركزين وباهي هاي حالة عافيماد ودلك الدبادة جارحان دلك هندي إن لو قاضو si halkaas in qaliin loogu sameeyo laga yaabo markaas in xaaladiisa caafimaad ay ku badbaado Dhibban Ali Maxamed Cabdi xilli uu dhaqaatiirtu weydiiyay su'aal ah qarash ahaan waxa ku bixi kara waxay u sheegeen in ay ku bixi karto lacag gaaraysa 25,000 oo dollarka Mareykanka qarashka maxay ugu bixi karaan dhaqaatiirta nafteeda way dad kala toohad meesha aadiyaan weydii oo ka imaaday oo 3 qofood ay aan weydii 25,000 ay dhaheen Aabahan 49 jirka ah iyo eheladiisa ma yihiin kuwa awooda lacagtaasi si loo badbaadiyo nolosha aabaha 10 caruura maya hadii awoodo ma joogteen baadin awood ma joogteen maalintiisaas leedayaan bacalahayba ama kan waqtigan ama waa dhimay ama waa noolaan lahay ma aan kuma lugoodeen inta waxa u fadhiyo qarash laan leeyahay Dhibban Ali Maxamed Cabdi ayaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda dawladda ka codsaday in ay il naxariis la ku soo eegaan isla markaasina ay ka caawiyaan sidii uu ku caafimaadi lahaa ummadda islaamka meel walba ay joogto inay taageerto ayaan u baahanahay oo qarash ugu taageerto oo meel Allah meeshii baan Ilaahay yaalahay qalbigayda u dheer yahay liigayaan aan asaniya waxaan u baahanahay hadii oo madaxweynaha oo as wax ay qaban kara dhibka yahay waa dhib aan qarsoonaan oo meel walba laga daawado waa in wax ay qabto oo baahanahay intuu magaalada ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka dhamaan طبعا وجدان حنونك إدواتها هيستا walaalkan Soomaaliyeed qof kasto muslima ee daawanaya isla markaasina awooda in uu ka qayb qaato badbaadinta nolosha aabahan 49 jirka ah teleefankiisa uu sheegtay qof walba ha ku soo caawiya teleefankayga furaha 8 eber hal 6648 waaye furaha 8 waaye eber hal 6648 waaye Cabduqaadir Cumar Cabdulle Fiidka gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Somali Cable TV